السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan wax yar ka hadli doonaa computer hardware, noocyada hardware-ka, types of hardware. Hardware is a physical part of computer. wax walba oo ka mid ah computerka kaasoo la taaban karo waxaa la yiraahdaa hardware. laga bilaabo power button ama buttonka laga shido ka mid yahay hardware-ka. computer case, daboolka systemka wuxuu loo kala qaadaa ilaa 4 qaybood: full tower, mid tower, mini tower iyo small form factor. mid walba magaciisa wuxuu ka turjumayaa cabirkiisa. monitors, CRT monitor waa shaashada kombiyuutaradii hore, waana midda gadaal u dheer. si aad ula socotid waxyaabaha cusub ee janaalkeena, fadlan subscribe. liquid crystal display LCD monitor waa shaashadaha dambe ee casriga ah. waa shaashado awood badan oo aad kalarkoodu fiican yahay. waa shaashadihii dambe. keyboard waa input device, shayga kaliya ee noo suurtageliya inaan kombiyuutarka wax ku qorno. oo noocyo badan yahay. isaga ayaa wuxuu si kala baxaa 7 qaybood. function key wuxuu ka bilaabdaa F1 ilaa F12. numeric keypad waa qaybta nambarada. control key waa sida control alt shift iyo wixii lamid ah. navigation key waa qaybta arrowska iyo keyboardku wuxuu leeyahay wired iyo wireless. waa mid xarig leh iyo mid xarig la'aan ah. ergonomic keypad waa keyboard laba qayb u qayb. waxaa jiro keyboardo badan oo kala nooc iyo kala size ah. qofka aad u barta xarfaha keyboardka waxaa loo yaqaanaa master keyboard. mouse waa input device, wuxuu noo suurtageliyaa inaan maamulno kombiyuutarka gudihiisa. wuxuu leeyahay falaar meel walba tegi karta. mouseka waa noocyo badan yahay. noocyadiisa waxaa ka mid ah optical, wireless, joystick iyo noocyo kaleenta. mouseka wuxuu u qaybsamaa left click iyo right click iyo qayb dhexe oo loo yaqaano trackball ama scroll. laptopka wuxuu leeyahay mouse la yiraahdo touchpad. touchpadka wuxuu ka kooban yahay flatboard iyo sidoo kale left click iyo right click. mararka qaar waxaa loo isticmaalaa ul ama waxa loo yaqaano stick. waxaa sidoo kale jira computer la yiraahdo all in one, waa system dhammaan isku samaysan. printer wuxuu noo suurtageliyaa inaan daabacno dhammaan xogaha ku kaydsan kombiyuutarka. hadduu eebbe idmo waxaa jiri doona qaybo kale oo aanu hadli doono dhammaan qaybaha kale ee hardware-ka. fadlan gaarsii asxaabtaada si ay ugu faa'iidaystaan.